Bismillah, salaamu calaykum. Soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ee ku xidhan Honey Lucky Channel. Casharkeenan waa casharkeenu ku baranaynay doojka. Walaalaha qaaliga waxaan ogeysiinayaa casharkan haddaad rabtaan inaan idiin soo geliyo si maalin dhaaf ah aad u heshaan. Videoga casharka aan idiin soo geliyo like saara ugu yaraan 20 like haddaan ku arko inaad saarteen videogii. Waan soo gelinayaa si maalin dhaaf ah casharka insha Allah. Like-tu muhiim ayay noo tahay waayo YouTube-ka dad fara badan buu usii bandhigayaa. Dadkaana kuwii u baahan inay bartaan casharka way nagu soo biirayaan si iyaguna uga faa'iidaystaan casharadan channelka soo gelino channelkuna uu u koro. Walaalaha groupka ku jirana waan u sheegay laakiin walaalo fara badan baa jira oon groupka ku jirin casharkana la socda idinkana haddaan idiin sheegayaa. Haddii laakiin like-ta aad kala baqayshaan videoga casharada unaad iska qaadataan oo idan like saareynin anna markaa usbuucii hal mar ayaan soo gelinayaa casharka. Haddaa rabtaan inaan idiin dadaalo si maalin dhaafa casharka aad u heshaan insha Allah idinkuna dadaala channelkana kor u qaada waad mahadsantihiin. Casharkeena maanta ciwaankiisu waxa weeyaan akhrin iyo qorid. Lesen akhrinta iyo und iyo schreiben qorida. Lesen und schreiben akhrinta iyo qorida. Ich lese sida kalena xagga anuga ka leeyahay. Waa hoogdooj markaad akhriyaysid in Deutschland haddaad ku nooshahay magaalooyinka qaar ish looga dhawaaqo. marka waxaad leedahay ich lese ama ich lese waa isku mid. Waan akhriyayaa waan akhriyayaa markaad wax akhriyaysa ayaad leedahay ich lese waan akhriyayaa. Ich lese einen Buchstaben. Ich lese einen Buchstaben. waxaan akhriyayaa xarfo. Buchstaben waxa weeyaan xarfaha sida A, B, C, D baataajada marka mid u akhriyaysid weeyaan buchstabe haddaad tirahdo waa hal xaraf weeyaan laakiin haddii aad tirahdo buchstaben waxay noqonaysaa xarfo yacni xarfihii oo dhan aad akhriyaya ayay ka dhigantaa ama dhowr xaraf oo kale inaad akhriyaysid yacni wixii hal ka badan weeyaan wixii hal ka badan jamac buchstaben. Ich lese einen Buchstaben. waxaan akhriyayaa xarfo. Ich lese ein Wort. Ich lese ein Wort. waxaan akhriyayaa kelmad. Ich lese ein Wort. waxaan akhriyayaa kelmad. Ich lese einen Satz. Ich lese einen Satz. waxaan akhriyayaa jumlad. Ich lese einen Satz. waxaan akhriyayaa jumlad ama word. jumlad dhammaystiran markaad akhriyaysid. Ich lese einen Satz. Ich lese einen Brief. Ich lese einen Brief. Brief lesen warqad akhrin. Ich lese einen Brief. waxaan akhriyayaa warqad. Brief waa warqada. Ich lese einen Brief. waxaan akhriyayaa warqad. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. waxaan akhriyayaa buug ayaan akhriyayaa. Ich lese ein Buch. Wir lesen anagu waan akhriyaynaa. Du liest adigu waad akhriyaysaa. liest isagu uu akhriyayaa. Ich schreibe waan qorayaa. Ich schreibe waan qorayaa. Ich schreibe waan qorayaa. Ich schreibe einen Buchstaben. waxaan qorayaa xarfo. waxaan qorayaa xarfo. Ich schreibe einen Buchstaben. Ich schreibe ein Wort. Ich schreibe ein Wort. waxaan qorayaa kelmad. Ich schreibe ein Wort. Ich schreibe einen Satz. Ich schreibe einen Satz. waxaan qorayaa jumlad. Ich schreibe einen Satz. waxaan qorayaa jumlad. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen
Brief. Waxaan qorayaa warqad. Ich schreibe einen Brief. Waxaan qorayaa warqad. Ich schreibe ein Buch. Ich schreibe ein Buch. Waxaan qorayaa buug. Ich schreibe ein Buch. Waxaan qorayaa buug. Wir schreiben. Wir schreiben. Anagu waan qoraynaa. Du schreibst. Du schreibst. Adigu waad qoraysaa. Schreibt. Schreibt. Isagu wuu qorayaa. halkan ba casharkeenu inoogu joogaa intaynu kaga kulmayna cashar kaloo cusub asxaabey ha ilaabin waxaan idinku soo sheegay fiideoga bilowgiisa waad mahadsantihiin waxaan idin leeyahay fi amaanillaah auf wiederhören Freunde maqal dambe asxaabey wasalaamu calaykum